sawirro la qaaday kuwaasoo ilaa hadda loo laayahay wax fasiraad ah. daawadayaal muuqaalkan maanta waxaan idinkula wadaagayaa sawirro mucjiso ah oo bini'aadamku ilaa haddeer u waayeen wax fasiraad ah. daawo ilaa dhammaadka muuqaalka, waa muhiim inaad baratid wax aadan horey oo aqoon. sawirka koowaad 1963 dhacdadii lagu khaarijiyay madaxweynihii Mareykanka ee xilligaas John F. Kennedy. muuqaaladii iyo sawirradii laga qaaday goobta badankood waxaa ka muuqanaysay haweeney qabta khamaar taas oo qaadaysay sawirro. dadkii ku agdhawaana waxay ahaayeen kuwo naftooda la wada cararayay maadaama meesha ay xabad ka socotay. markii FBI-du ay baaritaan dheer ku samaysay haweeneydaas, ilaa haddeer lama ogaan qofka ay tahay. sawirka labaad, muddo dheer dooxada loo yaqaano Hesdalen ee ku taala dalka Norway waxay caan ku ahayd leerka ama iftiinka ka muuqda habeenkii oo haddeer aad ka arki kartaan sawirka shaashada saaran. iftiinkan ilaa haddeer saynisyahanadu ma aqoonsan waxa uu yahay iyo sababta keentay. sawirka saddexaad, sanadkii 1964 laba qof oo ku sugnaa jasiiradda loo yaqaan Lagoon ayaa waxay qaadeen sawirkan oo ahaa wax aysan garanayn oo ku dhex jiray biyaha badda, kaasoo u soo dabaalanayay dhinacooda. kadib markii ay dhowr sawir ka qaadeen, waxay sheegeen inta uusan tegin bahalka inuu afkiisa kala qaaday. ilaa haddeerna lama oga waxa uu ahaa. sawirka afraad, sawirkan aad arkaysaan ee inanta yar waxaa qaaday aabbaheed. kadib markii aabbaheed uu arkay sawirrada, waxa uu arkay wax u labis eeg sida dadka cirbixiyeenada ah oo kale oo taagan gadaasha sawirka gabadha. wuxuuna sheegay markii uu qaadayay sawirka in aysan waxba gadaasheeda taagnayn. kadib doodo badan oo ka dhashay sawirka, waxaa sawirkan baaritaan ku sameeyey shirkadda Kodak oo ah shirkad qaabilsan filin samaynta. ilaa haddeerna lama oga waxa uu yahay. sawirka shanaad, sanadkii 1924 laba nin oo ahaa badmareen ayaa ku geeriyooday iyagoo ku jiray safar kadib shil ku yimid doontooda. kadib waxaa aasay dadkii la socday waxayna ku rideen badda. laba beri kadib, dadkii doonta saarnaa waxay sheegeen in ay arkayeen madaxyada labadii nin kuwaas oo daba socday doonta. kadib kabtankii doontu wuxuu qaaday sawirkan oo muujinaya laba madax. ilaa haddana lama yaqaan sababta. wax yar ii dulqaado inta aanu sii wadin muuqaalka. fadlan waxaan kaa codsanayaa in aad kanaalka Dhextaal subscribe saarato, gambaleelkana furato haddii aadan horey u saarin. haddii aad ka mid ahayd asxaabta nagu xiran, aad iyo aad baan kuugu mahadcelinaynaa. aan sii wadanno muuqaalka. sawirka lixaad, sanadkii 1960 waxaa sawirro laga qaaday walax madow oo ku wareegaysay dhulka. wakhtigaas wax satellite ah lama dirin, loomana aqoonsanin walaxdaas in ay tahay mid uu bini'aadam sameeyey. intaas wixii ka dambaysayna waxaa la arkayay qaar kale oo la mid ah walaxdaas oo ku wareegaya dhulka, lamana yaqaan waxa ay ahaayeen. sawirka toddobaad, sawirkan aad arkaysaan lagama hayo wax xog ah oo dheeraad ah. keliya waxaa la og yahay in qoyskan ay sawirka iska qaadeen kadib markii ay degeen guri cusub. waxaana sawirka ka muuqanaya meyd ka soo laadlaada saqafka kore. sawirka sideedaad, sawirkan aad arkaysid waxaa qaaday dayax-gacmeedka Apollo 17 safarkiisii ugu dambeeyey ee uu ku tegay dayaxa. sawirkan maadaama uu iftiinku ku badan yahay waxba lagama arki karo, laakiin markii constructiga sawirka la soxo wuxuu muujinayaa dhisme u samaysan qaabka ahraamta Masar oo kale, lamana sheegin in dayaxa ay dhismayaal ku yaaliin. sawirka sagaalaad, sawirkan waxaa la qaaday sanadkii 1919. ciidankan waxay xusayaan saaxiibkooda oo dhintay. sawirka qaybtiisa kore waxaa ka muuqda qof wejigiis oo ka dambeeya mid ka mid ah ciidanka. markii la arkay sawirkan, waxaa aqoonsaday askarta sawirka gelaysay, wuxuuna ahaa saaxiibkoodii dhintay. laakiinse sababtu waxay tahay, sidee qof dhintay sawir ula geli karaa asxaabtiisa? waa su'aasha ilaa haddeer la isweydiinayo ee lagu weerarsan yahay. sawirka tobnaad, 2013 waxaa meydka gabar lagu magacaabo Elisa laga helay qaybta kore ee haamaha biyaha lagu shubo ee hoteelka ay deganeed. dhimashadeeda waxaa lagu sheegay in uu ahaa shil, laakiinse kaamiradaha hoteelka waxay muujinayaan Elisa oo gelaysa wiishka hoteelka iyadoo u dhaqmaysa sidii in ay ka cararayso cadow ama qof sasan oo kale. waxaana ilaa hadda la garan la'yahay waxa ay gabadhan ka cararaysay. dhaqaatiirtu waxay sheegeen in gabadhan meydkeeda aan laga helin wax darooga ah. sawirka 11aad, sawirkan waa dhalinyaro saaxiiba ah oo sawir iska wada qaadayay. marka aad fiirisid ma dareemaysid in sawirkan wax ka khaldan yihiin, laakiinse sawirka waxaa ka muuqda gacan kale oo gadaashooda ka muuqata. dhalinyartan waxay sheegeen markii sawirka iska qaadayeen in goobta aysan joogin cid kale, taas oo keentay in la garan waayo sababta gacanta sawirka uga muuqato. ilaa haddana lama oga.
waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka fadlan ha hilmaamin in aad like saarto fiidiyowgan mahadsanid